لعل هدي ودنك aad xildhibaanad ka ahaan lahayd yaad madaxweyne u dooran lahayd oo codkaaga siin lahayd محمد عبد الله فرماجو محمد عبد الله فرماجو السلام عليكم صاحبada qiimaha badan meel walba dunida ku joogtaan waan salaamaya waa saaxiibkeen Saami oo idin la isku soo noqod wanaagsan iyo barnaamij kale maanta xiiso gaar ah leh barnaamijkan barnaamijyadii hore uu ka duwan yahay inkastoo aan liiga baran siyaasadda iyo falanqaynta siyaasadda barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay aragtida dadweynaha iyo shacabka reer Islii waxaana ku eegaynaa aragtidooda cida hadii ay wadanka xildhibaan ka ahaan lahaayeen shakhsi waliba uu wadanka xildhibaan ka ahaan lahaa cida wadanka uu madaxweyne ugu dooran lahaa kulay dabcan qof waliba de ra'yigiisa iyo fikirkiisa saliimka waa soo dhaweynaa waa maasantiin saaxiibiya ugu horeen ku soo dhaw Saamisho barnaamijka maanta wadno waxa weeye aragtida dadweynaha lacala hadii aad tahay xildhibaanad wadanka aad ka tahay yaad u dooran lahayd wadanka madaxweyne yaad ugu dooran lahayd waxaan u dooran lahaa madaxweynaha hadda xilka haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo adoo mikrofoonka ku dhaweynay hadda waxaan u dooran lahaa madaxweynaha hadda noo xilka haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u dooran lahayd way sababta ugu dooranaysa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma noo sheegi kartaa yes sababta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku dooranayo waxay tahay wax wadanka u qabtay waligay ma arkin anigu horta intaan anigu garaadsaday ma arkin dawladda aan arko ما جرين لكن أنت دولة حاسد برك بعد قلقي ما داي أو دولة وحلقة في ما شغبتي عرورتي كوجرتين ما دير ما هبلي كوجرين ليبيا وكوكيني أولا كنترول ما إنه نقول بفرناش كورتو أولا إنه يعني تدخل كوش قاستان ما إنه نقول إذا كعبنا يمشهر الآن لما أرق يعني وانين ودني حقوق شيء جاي إنه ودني جاي يسقى معارض كسر شيء ده أيه واحد شيء إنه سنين كان نمسك ماسك يا قبيلة مدنا وقال أنا بقشينا ولا طبعا ها معارض كشيء إن حا كسر شيء ده شيء جاي أوكي وانقرت مركز إنه عبد الله فرماجان أنت أدونك كهذا إنه نولي هاي أو دور الناس وما سنت كسر مركله وغورين كسر برنامج كسامي شو ما شاء الله بقولك بقول وكله هاي وسامون ما تقولنا والسلام وما زنتاي برنامجك وحوي ما أنت أركتد تدوينها يا سياسة لعل هدي أدهان لد حلبان أدودن كحلبان كهان لد يا أدودن كمدحوين ودوران لد هذا ميكروفون كاف كدوينيو ما شاء الله ورت تاس وورت مدامين كسوان اللي رأنا ما شاء الله ورت وفعنا للعدي وحنا أنا قاعد عنه ما أنتوا كلا عدين نقاضل هايو كلا أنا ما شاء الله سبتانك واحد عدان كأهلين الحمد لله ورت وفعنا لدورتين ما شاء الله ولا هذا نك مدحوينها كا نقول علي لا غف كلا نقول مديبين فرماجة تاجر سنة فرماجة تاجر سنتين فرماجة تاجر سنة أوكي واي هاي منو شيء كرتا صوبت فرماجة أدو تاجرتي أد مرلبات أد مدحوين وقو دوران ليد فرماجة ورتي وورتي لأن واحد والبصباب اللي ده سمعان صوبت أقو تاجر سكرت مع واحد ميكروفون كاف كدوي وانا واحد بدن كسو كردي واحد بدن او قبتي ما انتو مديا ما انتين لو امان نيكاس ما انت خلكو امام خلكو ما انت هاي ام wax wadanka u qabtay aad aaduna wadanku ugu dadaalay inta tabartiisa oo karaamkiisa oo qaba karana oo qabtay inta kalena ilaahay la garab galo hadii isku wada xirnaa lahaayeen madaxda iyo wax hadan ha noqoto dhamaantood isku xirnaa lahaayeen waxaan aaminsanaynaa mar walba guul gaari lahayn aan noqoleen dawladda adduunka ugu awood badan okay macnaha waxaad ku taageertay wax qabadkiisa ma noo sheegi kartaa hal kamid mise laba kamid ah wax qabadku wadanka uu ka qabtay wad aragtay hadeertan dhalinyaradan oo meeshan ku xabsiyada ku jiray hadeertan ugu dambeysay soo deynayay waa asaga sabab waa Soomaan oo inta soo celiyo wadankooda ku soo celiyo dhalinyarada waxa arkay laba sano xabsi ku jir dhahayo soo cabaad soo oynayeen waa aragtay teeda kale askartana waa aragtay wuxuu ku soo gurbiyo waa barnaamijyada waxa aato hadii mishaarka ay aato inay askarta mishaarka ka wada caba jireen waxa nin walba akoonkiisa ugu dhacayso mishaarka ay 28 meelaas ayadoo marayso mishaarka akoonkiisa ugu dhacaysa askariga waa waxyaabo uu ka bedelay waxyaalaha wadanka bedelay waa ma santahay barnaamijka Saamisho markan la ku soo dhawo fikirkaaga saliimka ana waan soo dhaweynaynaa aad iyo aad u mahad celinaa dhamaantiin horan ku soo dhawo barnaamijka Saamisho ku dhawahay barnaamijku waa aragtida dadweynaha lacala hadii aad wadanka xildhibaanad ka ahaan lahayd yaad madaxweyne u dooran lahayd oo codkaaga siin lahayd
مدن حسن شيخ محمود مدن حسن شيخ محمود يس ما noo sheegi kartaa sababta xasan sheekh maxamuud aad ugu codeyn lahayd 4 sano oo soo dhaafay waqtiga dowladnimada oo wadanka uu lahaay dad kala dambeyn haddana waxaa rajeynayaa inuu ku soo laabto kursiga xasan sheekh maxamuud aad u dooran lahayd madaxweyne inuu wadanka noqdo yes sababta aad u doorantay maxay tahay wadanka 4 sano soo dhaafay oo isaga hay xilka waa aragta kala dambeynta iyo nidaamka iyo wadooyinka oo dhismay dawladii oo sida hore aan ahaanin dad badan oo Soomaaliyeed oo shaqaheenu shaqo siiyay waxyaalo badan oo lagu xasuustaa haddana waxaan rajeynayaa inuu soo laabto wadanka aad isaga codkaaga siin leed yes mar labaad waxaan ku leeyahay ku soo dhawo barnaamijka Sami Show iyo aragtida dadweynaha waa ku dhawahay ugu horreyn ku soo dhawo barnaamijka aragtida dadweynaha ee Sami Show ku soo dhawo waa ku dhawahay idinkii asxaabtii waan salaamayaa meesha wixinta aad ayaan ugu dhawahay barnaamijka waa barnaamijka aragtida dadweynaha waxaan rabnaa inaan aragno shacabka reer Islii aragtidooda lacala haddii aad maanta wadanka ka ahaan lid xildhibaan cidda aad madaxweyne u dooran lahayd yaad madaxweyne u dooran lahayd waa maasanta horta waxaan u dooran lahaa xildhibaan noqon lahaa maanta Cabdiraxmaan Cabdishakuur okay waayahay aragtidaada waa muhiim ma noo sheegi kartaa sababta aad maanta ugu dooran lahayd Cabdiraxmaan Cabdishakuur wadanka inuu madaxweyne ka noqdo wallaahi horta waa nin aqoonyahana oo diin iyo xagga waxbarasho maadii wax walba ka dhisan nin aqoonyahana siyaasiya oo maanta siyaasaddan isku wadi kara oo araga shacabkan Soomaaliyeed dhibka ka bixin kara ayaan filayaa inuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur maanta u dooran lahaa insha Allah tuu maanta aniga xildhibaan noqon lahaa laga tago wax si qaas ahaan ah maanta aad dhigi karto wadanka Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuu u qabtay oo sidaas awgeeda ugu dooranaya ma noo sheegi kartaa wala horta waa nin siyaasi ah oo siyaasi aragti fog waaye ma garatay maanta isku wadi karo waaye araga haddii mucaarad la dhihi lahaa haddii maxaafad la dhihi lahaa nin isku wadi karo waaye araga nin hore u soo shaqeeyay waayo oo ishaag wasiir hore u soo ahaa xukuumaddii Sheekh Shariif aha waxyaabo badan baa ku soo xasuustaa insha Allah haddana asaga baa sababta bixin kara wadankan aad isaga jeceshahay inuu wadanka madaxweyne ka noqdo aad iyo aad okay waa maasan tahay mar kale waxaan ku leenahay aragtidaada fikirkaaga saliimka waa soo dhaweynaynaa kuna soo dhawo barnaamijka Sami Show waa dhawa saaxiib aad iyo aad waa maasan saaxiib ugu horreyn ku soo dhawo barnaamijka Sami Show iyo aragtida dadweynaha waa ku dhawahay barnaamijka waxa weeye aragtida dadweynaha lacala haddii wadanka aad xildhibaanad ka ahaan lahayd yaad madaxweyne u dooran lahayd oo codkaaga siin lahayd maxamed cabdullaahi farmaajo okay waayahay ma noo sheegi kartaa sababta aad maxamed cabdullaahi farmaajo aad ku dooran lahayd oo codkaaga u siin lahayd farmaajo waxaa ku doortay guriga ma dhisan ma fahantay dalka waa soo noqday sharaftiisa dadkiisa kulli adduunka maanta waa nagala aqoonsan yahay eemalna jokoraaya ka ahayn adduunka saas waa xaaladda marka dadka musharaxiinta kale wadanka micnaha waxa waa hadalkaaga inay ka dhisteen muxuu ahay guri miya isaga kuwii hore bad iyo beriba waa gateen iyo dadkiiba ya haddana haddaan ugu soo noqdaan keliyaheeba ka mushtarayaanbo miya waa maasan tahay waan soo dhaweynaynaa fakarkaaga saliimka mar kalena waxaan ku leenahay ku soo dhawo barnaamijka Sami Show iyo aragtida dadweynaha adaa mudan ku soo dhawo barnaamijka Sami Show waa dhawa brother barnaamijka maanta waa aragtida dadweynaha okay lacala haddii aad xildhibaan wadanka ka ahaan lahayd yaad madaxweyne wadanka u dooran lahayd wallahi horta daa xildhibaan ahaan lahaa madaxweyne wadanka waxa u dooran lahaa Roble u dooran lahayd waayahay ma noo sheegi kartaa sababta aad Roble madaxweyne ugu dooran lahayd inkastoo hadda uuna ahayn musharax anaga waxaan ka hadlaynaa waa musharaxiinta horta inuu musharax yahay waan ogahay laakiin waxaan jeclaan lahaa inuu musharaxiinta isku soo daro oo ninkaas waa nin halgamaa waa nin shaqeyn karo dawladda Soomaaliya hadda u baahan tahay laakiin haddii la waayo isaga booskiisa maanta waxaa dooran lahaa Xasan Cali Khayr haddii su'aashaada hore aan u soo laabto Roble ayaan dooran lahaa ayaa tiri ma noo sheegi kartaa sababta aad Roble ku taageertay aad u dooran lahayd hadda Roble waxaan ku taageeray oo isheegay waxa waaye ninkaas nin shaqeyn karo waa oo aqoon u leeyahay siyaasadda hadda waa aragtay intii yartu uu joogay Soomaaliya wuxuu qabtay wax qarsoon maahan wuxuu qabto waxa waaye adiga waxyaabo iska muuqdo oo la qarin karin okay waayahay waxaa tiri waxyaabo ayuu wadanka u qabtay ma noo sheegi kartaa waxyaabaha wadanka uu qabtay hal mise labo
waxaa kaloo haddeertaan waa gargaarka dadka hadda u fidiyo kale Soomaalida oo adiga oo ishig inta kala uga soo qaaday caawinaadda laftigeed waa la dhigi karaa sidoo kale hadda dowladda Soomaaliya waxay ka jirtaa dad badan oo dhibaataysan oo abaar dadkan baabiisay ninka haddeertaan dad badan oo abaar ay soo wax ogeeyay anigu waxaan u dooran lahaa waa nin adiga howlgal oo shaqeyn karo marka maadaama ay sheeg uu ku jirin laakiin waxaan dhihi lahaa siyaasadda isku soo daro oo sharaxa noqdo hadda isaga madaxweynuhu dooraneed haani soo dooran laani di isla waayeen waxaan dhihi lahaa khayra wata miya okay khayra isagana maxaa ku dooratay khayra hadda waxa waay nin oo hore u soo shaqeeyay Soomaaliya oo kursiga beebaan looga tuurkoodhi laakiin insha Allah wadirtaan u tartamaya tartankiisuna waxa u maleynaa inuu ku guuleysanayo haddii la waayo waxa waay Roble khayraad taageera waa maasantahay waan soo dhaweynaynaa fikirkaaga saliimka mar kalena waxaan ku leenahay barnaamijka Sami Show ku soo dhawow okay waa dhawaad brother waa maasantiin ku soo dhawow barnaamijka Sami Show iyo aragtida dadweynaha adoo mikrofoonka af ku dhaweynayo waan ku dhawahay waa maasantahay barnaamijka waa aragtida dadweynaha lacala haddii aad wadanka xildhibaanadka ahaan leed yaad wadanka madaxweyne u dooran leed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وحن سلام يا سومالوين ملك استيجوكتو هدي أنا عن حلبان كأهان لها وحاول دوران لها محمد عبد الله فرماجو محمد عبد الله فرماجو أو دوران لهت منو شيء كرتا صوبت محمد عبد الله فرماجو أدو دوران لهت عدك قوسين لهت wax badan ayuu wadanka nooga qabtay dad la yaqaan muctarif ah ayaan noqonay aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa wax badan oo noo qabtay oo halkan lagu soo koobi karin waa gartay maxaa kamid ah waxyaabaha wadanka uu qabtay dhulku dhisay wadanku dhisay nabadgelyadu ma taqaana aad iyo aad uga taxadaray dad badan oo wadanka carqalad ku hayay uu naga yareeyay wax badan ayuu noo qabtay waa maasantahay mar kale waxaan ku leenahay ku soo dhawow barnaamijka Sami Show iyo aragtida dadweynaha waa maasantahay walaal ku soo dhawow barnaamijka Sami Show iyo aragtida dadweynaha ku dhawow walaal ku dhawow adigoo mikrofoonka af ku dhaweynayo dhawow barnaamijka waa aragtida dadweynaha lacala haddii aad xildhibaan wadanka ka ahaan leed yaad wadanka madaxweyne u dooran leed iska caddahay ani maxamed cabdullaahi farmaajo qof aan ahayn ma codkayga ma siin lahayn محمد عبد الله فرماجة أو عذر ليت. أوكي وايا منوشي كرتا صابت محمد عبد الله فرماجة أدو دورتي. محمد عبد الله فرماجة وحكون دورتي ضد ودنك قفك ونحاي وأسجى وتنازل بدنه أرجع تنازل بدنه وكل جنك واحد تنازل بدن ملا أسجى ومدحبينا وحول بقسمين كرا وهدنا ضدك وحب حلك هين وحش جان ويلا وقت والبو هاي ساس إساء هاي وتاجيان نك تنازل بدنا أصلا كنت تاجرني واني تنازل بدنا كدورة تمية من تنازل بدن وحول بوالا عيا ضدك محرو سوى البالوت الليلة وحلليه دكتور شيبواي وحلليه هاي اف جنبي مدحوينه اف جنبي سمينا ولي جاي مقل اف جنبي وحاسمايو ciidanka taliyaasha ciidanka booliiska oo heshiiyay ka bacdan madaxweynaha afgambi lagu sameeyay laakiin waxa la leeyahay meeshan ra'iisul wasaare afgambi lagu sameeyay ra'iisul wasaare muxuu afgambi lagu sameeyay dikreeta lagu keenay dil rab dikreeta lagu diri karaa waxaasna sameyn karto haddana uu ka tanaasulo wax walba uu ka tanaasulee waa maasantahay waan ku soo dhaweynaynaa barnaamijka Sami Show iyo aragtida dadweynaha marka waa maasantahay ugu horeen ku soo dhawo barnaamijka Sami Show waan ku soo dhawo walaal waa maasantahay barnaamijka waa aragtida dadweynaha zaid lacala haddii aad xildhibaan ahaan lahayd yaad wadanka madaxweyne u dooran lahayd taasaki baa ku jiray haye farmaajaan dooran lahayd farmaajo dooran lahayd okay waa maasantahay ma noo sheegi kartaa sababta aad farmaajo aad wadanka madaxweyne ugu dooran lahayd waan sheegi karaa waa sababta oo xalahay ciidankeena difaaca muddo xalahay 5 sano ka xalahay muddo san karo xasan maxamuud uu ahay أنا مشير وقانين حتى أنا مشير في عن أدو قاتان. أقرت. وده كان مثل ناس بيه. أقرت. أنا ما عند الدنيا دي الأحمر راح هو بقول كسياش إنه في المواد دور ناين. وصوت أنت أقرت أنا. dadka waxa dhahday boqolkii wasagaashan maanta dadka waxay u codeyn lahaayeen farmaajo okay waa yahay maxaa baaq u diri lahayd xildhibaanada dooranayo muxuu ahaay madaxweynaha maxaad ku dhihi lahayd oo aad dhihi lahayd ma garanaysaay codkiina siiya ani waxa lahaay sanadka ma dhihi lahayn ilaa 20 sano la iska siiyo 20 sano la siiyo 20 sano la siiyo soo wadanka uu hornuur u suubiyo 5 sano waxa lahaay حمل بلار أسوبية حتى لا تصل لو درا
حتى مركن قالت تتم كنا أفرس كداي أقرت وكا هات أنت يا سنة ما سنتاي مركل وعن كلنا هاي كسودو برنامج كسامي شو كسودو يا ركتد الدوينة كسودو ولا ما سنتاي صاحبتي قيمة بدن وميلول بعد دون ذيك جوكتان إن برنامج كين وها ركتد الدوينة ما أنت هالك يعني كسو أفميرنا حدي وبرنامج كحيس جارة وليه هاي إن أنت برنامج كان برنامج حاجة أنكو كل مدونه waxaan leenahay hadii barnaamijka uu xiise gaar u leeyahay qaybo kale ayaan u soo sameeynaa dhanka commentiga iyo fikirkiina ayaan idinka sugeynaa intaan barnaamijka xiga aan ku kulmeynana waxaan leenahay nabadgelyo